madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland martiqaad ugu fidiyay mudanayaasha golaha wakiilada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana madasha goobjoog ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku-xigeenka madaxweynaha gudoomiyaha maxkamadda sare shirgudoonka golayaasha sharci dejinta ee wakiilada iyo guurtida xubno ka mid ah golaha wasiirada gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye maayirka caasimadda Hargeysa iyo siyaasiyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Biixi waxaana martiqaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku maamuusay mudanayaasha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ka warramay muhiimadda golaha wakiiladu uu leeyahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa golayaasha saddexda ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay baadta ilaahay kadibna waxaynu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu maanta halkan hadhiima sharafeed ugu sameeyay golaha wakiilada oo isu dhan waa habdhaqan soo jireen ah in golayaasha la doortay madaxweynuhu uu ku casuumo halkan waynu uga mahadnaqaynaa madaxweynaha waxaana dhammaan hay'adaha dawladda ee halkan fadhiya isku xidha oo oday u ah madaxweynaha oo ah odaygii guud ee qaranka sida uu xil uga saaran yahay xukuumadda buu xil uga saaran yahay golaha baarlamaanka oo isku dhan sidaasi la eg buu golaha garsoorkana xil uga saaran yahay waana odaygii guud ee isku xidhayay intaasoo dhan mid walbana hawsha uu hayo cidda ku kor joogtaynaysa ee ku ilaalinaysa waa isaga madaxweynuhu isagaa madaxweynihii qaranka golahana isagaa xukuma ee golo Cabdirasaaq Khaliif xukumo oo mucaarad oo halka jooga ma aha waa golo qaran oo madaxweynuhu xukumo gudoomiyaha golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa la dardaarmay mudanayaasha golaha wakiilada ee ka soo qayb galay martiqaadka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu fidiyay rag bisil baa halka iga muuqda madaxweynaha idin casmayna ilaahay isagaa ka jasaaysiin idinkana dee hawshiinna cid idiin tilmaami maysee hawshiinna idin qabsan xilkiinna idin gudan doontaan ammaanna ma lihdin halkaasi waa wixii qaranku idin doortay ee dadkiinnu halka idinku soo dirtay dib uun ha u eeginayaan baqe waa nimankii maxaad kula noqon doontaa ku soo doortay ha dhowto waxaa muhiima heer qaran baa maanta u gudubteen oo qura qarankii oo dhan baa idin eegaya giddigeenna ina wada eegaya madaxweyne iyo madaxda kale ee fadhida iyo marti sharafta halka isugu timiba aad iyo aad baydu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha maanta isu keenay inaynu madaxweynaha iyo dowladdiisa la shaqayno weeye horta waajibka koowaad innagoo khusuusan golayaasheennu madaxweynaha xilkana waa la ilaashanayna isagana hadduunu xadgudbana insha allah xadgudi maaye waa soo joogso waa odhanayna gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa halka ka jeediya hadallo ku tacalluqa wada shaqaynta ka dhaxaysa saddexda golo iyo sida ay muhiim u tahay in golayaashaasi ay ilaaliyaan qawaaniinta iyo dastuurka dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland u yaala aad baan ugu faraxsanahay waana runtii arrin aan runtii madaxweynaha uga mahadnaqayno isu soo dumidda ama isugu yeedhidda golayaasha qaranka waa arrin qiimo badan hay-ad waloo dastuuriya waajib ku ah in shaqadeedana ay gudato shaqada hay-adda kale ee dastuuriga ay leedahay in ay ku ixtiraamto isla markaana xadkeeda ay ku ekaato waa waxa keliya ee dowladnimada ay ku imanayso kow in shaqo fiican la qabto oo haddii xilliyadii kaambeynka ama kaambeynka fan lacagtiisii cidi gaari kaa bixisay ama qaangaara ama lagula ololeeyey maanta inaad dadkaagii codka ku siiyey u shaqayso waa lagama maarmaan laakiin dadkii ku taageeray hostage ha u haan maanta adigaa madaxa adigaa wuxuu sheegaya marna cod baad doonaysay marna waxbaad hogaaminaysaa madaxweynaha waan uga mahadnaqaynaa runtii kulanka weyn ee qaran maanta isugu yeedhay si wanaagsan u wada shaqayno is ixtiraamno weeyaan madaxweynahana waan uga mahadnaqaynaa Soomaaliland hogaamintaas
iyo wadajirka iyo sharafta iyo karaamadaasi ku soo caanamaashay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa u mahad celiyey mudanayaasha golaha wakiilada ee martiqaadkan ka soo qayb galay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xildhibaanada iyo shirguddoonada labada gole ee aanu ku marti qaadnay qadadan ee naga ajiibay ee ka soo qayb galay aad iyo aad baanu ugu mahadnaqanaa waananu soo dhoweynaynaa maanta maalin ka horeysa inaynu qabanna ahayd qadadan golaha wakiilada aynu ku marti qaadayno iyo martida kaleba laakiin si la sheegay howlaha waa iska badan yihiin hadday daahdayna maanta waa joognaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxa uu ka warramay wada shaqaynta ka dhaxaysa saddexda gole iyo si ay muhiim u tahay in ay qaranka horumarkiisa ka wada shaqeeyaan golayaasha qaranka ugu sarreeya xeerdejinta oo laba aqala oo labada shirguddooma joogaan maxkamaddii oo jooga guddoomiyii maxkamadda sare iyo fulintii oo badankoodii jooga haddii ilaahay idmo inaynu noqonno xukuumad iyo dowlad danta qaranka ka shaqeeya dooda markay doodana halka codka u bato isku raaca qaabka ay u shaqeynayaana uu yahay mid ixtiraam ku dhisan hadduu qof la hadlaayo ooy doodayaan adoo doodaya ha ku xadgudbi qofka kale hadday qayb ama aqal kale la hadlaayana adoo doodaada iyo halka ay danta ku jirto tilmaamaya ay kuula muuqato ha ku xadgudbin aqalka kale ee doodaada si miyir qabta oo sharci ah oo ixtiraam leh u soo jeedi haddii taasi broseskaasi naga qaldamo oo dadku aanay si ixtiraam leh iyo aqaladooda shaqaynaya aanay u shaqaynin dee shaydaan baa ka dhex duulaya ilaa dad si xun wada hadla heshiin maayeen madaxweyne biixi waxaa kale uu la dardaarmay mudanayaasha golaha wakiilada ee madasha fadhiyey golaha wakiilada cusub ixtiraam baanu u haynaa ku xadgudbi mayno waa la shaqaynaynaa isku mid baynu nahay siyaasaddaasinu ku shaqaynaa haddii alla idhaahdo ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan xarunta qasriga madaxtooyada